fadhigan oo ay warbaahinta dibadda ka joogtay ayaa markii dambe waxaa warbaahinta uga waramay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax. waxa weeye golaha saaka golo xiran buu ahaa waxaana loo xidhay waxa weeye dhacdadii shalay ka dhacday Tukaraq waxay u dhaxaysaa Garowe iyo Laascaanood waa bartankii xuduudda Somaliland wali waxaa maqan konto kala maqan 7 kilomitir bay u jirtaa Garowe xuduudda Somaliland marka ciidamada Somaliland oo hawshoodii wata ayaa shalay lagu soo weeraray Tukaraq waxaadna ogeydeen muddooyinkan dambe dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxay wada faragelin dibindaabiyo ay ka dhex abuurayaan labada dal Soomaaliya iyo Soomaaliya taasoo xaalad abuura oo raba qalalaase iyo nabadgelyo inay ka ridaan mantaqada Geeska Afrika. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ixtiraamin heshiiska ay la galeen Somaliland waa sida uu hadalka u yidhi waxaanu tilmaamay in aanay aqbalayn in hawada laga maamulo Muqdisho. Dawladda Soomaaliya waxay cadeysay inayna ixtiraamayn heshiiskii lagu wada galay hawada Istanbul iyo mid kale ay wada galeen saddexda hay'adda UN-ka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliya hawada inta lagu heshiinayo in gacanta ay ku hayaan marka hawadana la qaybsado shirkii Istanbul la saasar lagu soo kala saxay dabadna hadda waxay sameeyeen inay yiraahdaan hawadii waxa lagu soo wareejiyay Soomaaliya annaga hawada Soomaaliland xukuumadda taasina waxa weeye waa meel ka dhac laga dhacayo qaranka Soomaaliland wax lagu yeelayo. Gudoomiyuhu waxa kale oo sheegay in ay hore baarlamaanka maamulka Puntland fadhi ay yeeshay waqtigii doorashadu ka socotay Somaliland ay ku sheegeen in aanay deegaanadaasi ka qabsoomi karin wax doorasho ahi taasoo gudoomiye Baasha ku tilmaamay mid xadgudubka ah Somaliland waa sida uu hadalka u yidhi socdaal ay wasiiro ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Puntland ay ku yimaadeen deegaano kamid ah gobolka Sanaag gaar ahaan Baran iyo Dhahar ayaa ku tilmaamay sidoo kale gudoomiyuhu in xadgudubyada kamid yihiin waxaas oo dhan waxay Somaliland inta jawaab kama ay bixin waxay ku jirtay waxa weeye diris wanaag tadayna waa nahay dhiigna diyaar uma aha Somaliland dhiig hore u soo gashay waxay ka shaqaysaa waxa weeye mantaqadu inay ku wada noolaato nabad laakiin wax loo dul qaadanay ma dhacdooyinkaas oo dhan baa is wada raacay haddana ciidamada Somaliland shaqadooda caadiga ahayd ayay wateen waa la soo weeraray waxa lagu weeraray dal Somaliland waad ogeydeen waxa ka sii horeeyay Qoriley baa ka sii horeysay Qoriley waxa weeye waa xuduudda Somaliland ciidamada Puntland madaxtooyada ayaa dad shacaba ku soo weeraray waxay ku soo weerareen Qoriley Somaliland iyadoo xaq dhowraysa wax falway ka celisay ma jirto marka daantaasiga bareerka baa ka socda sidii loo wiqilaa qarannimada Somaliland. gabagabadii waxa uu gudoomiyaha golaha wakiiladu sheegay in dulucda kulankoodu uu ahaa sidan marka waxaan shacabka Somaliland u sheegaynaa waxa weeye haddii ay joogsan weydo in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka sidaas aanu xildhibaanada maanta fadhi xiran ugu yeernay inaanu la socodsiino hadba xaaladdu meesha ay marayso waxaan uga diganaa Puntland inay ka waantoobaan ciidamadu waxay joogaan Tukaraq kana soo noqon waana joogayaan waana dalkii barkii weeye intii kalena way hadhay marka waxaan uga diganaa faragelin dambe inay ku soo sameeyaan. geesta kale golaha guurtida ee Somaliland oo aqalka sare ee baarlamaanka ayaa fadhi degdeg ah la isugu yeedhay maalintii shalay ahayd kaasoo qabsoomi doona maalinta bariya ee bishu tahay 10 Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa.